حق جيس النمذا حضين نقطنا شجاع بها نبينا عليه الصلاة والسلام مقالة المدينة هبين أيام ملبا روق بملك صويري صحابته هبكي انتي قاتين بماشي كويا عين والميل مقدي ومذويان شخصي ugu horeeyay ee ka hor yimid saxaabada ee ku yiri meesha aniga hortiin tagay oo waxba kama dhicin iska seexda shakhsigii yiri nabiyullaahi muhammad buha alayhi salatu wasalaam kunna idha hamaya alwatis nattaqi bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baydan saxaabadu dagaalka marka aan gallo ee dagaalku nagu dheeraado nagu kululaade dhiiguna uu daato shakhsiga aan dabadiisa dhufayska ka dhiganaynay ee gadaal aan ka maraynay wuxuu ahaa bay yiraahdaan asxaabtu nabiyullaahi muhammad buha alayhi salaatu wasalaam shujaac geesinimo haddaa doonto nebigu geesi buha waad arkaysaa zamankan dadka dagaalada markay ciidamo dagaal qaadayaan ninka abbaanduulaha ciidanka wata gadaashoodu fadhiistaa isagu laakiin ma dhacay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam maadaama uu ahaa mucallim ummadda wax baraya oo dhinac walba ummadda u raba inuu u noqdo masal lagu daydo asxaabtu waxay yidhaahdeen dagaalku markuu kululaado adkaado isaga gadaashiisaan maraynay yidhahdeen asxaabadu fii ghaswati xunayn maalintaa saxaabada tiradooda 12 kun baa lagu qiyaasaa dad badanoo mu'allafata alquluub oo maka markii la furtay soo islaamay oo iimaankoogu weli qalbiga uunan degin oo judud islaamnimada ku amaaragtaane judud ayaa markaa dagaalka nebiga la galay tirada gaalada mushrikiintu maalinta way yareen ciidanka gaaladu tiradoodu way ka yareen tirada muslimiinta qaar muslimiinta kamida waxay yiraahdeen maanta tira badni annaka la nooga guuleysan maaye gaalada annaka ka tira badanoo maanta annaka ka guuleysanayna tiraday eegeen tayada kuma xisaabtamaynin waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka markay dagaalamayaan gaaladii muslimiintu markay dagaalamayaan cidda tirada badan la guusha ma raacayso cidda hubka tayada fiican lana guushu ma raacde cidda ilaahay ku xidhan bay guushu raacdaa mar walba in yansurukum allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun haddii ilaahay uu inii gargaaro ilaahay ni guuleeyo oo guusha ilaahay uu ini siiyo cid inaga qaalib noqonaysa ma jirta baa ilaahay yidhi haddii ilaahay garabkiina uu ka baxo ini duleeyana isaga dabadi cid inii kaalmaynaysa ma jirta baa ilaahay yidhi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minuun dadka iimaanka sheeganaya mu'miniintu yaynan awoodooda tala saaran yayna cuddadooda tala saaran yayna tiradooda tala saaran waa inay talada ilaahay u dhiibtaan ay yidhaahdaan waxay guusha nagu raacaysaa waa hadduu ilaahay noo gargaaro ilaahayna jalla wacalaa dadka tiradooda iyo tayadooda ilaahay tiradooda eegi maaye dadka sida ilaahay ugu xidhan yihiin baa ilaahay dadka ugu gargaaraa tacalluqa ilaahay ay la leeyihiin ayaa ilaahay bini aadamka ku qiimayne bini aadamku waxa ay wataan asbaabtan khaarijigay walwaalanayaan ilaahay bini aadamka kuma qiimaynaye ilaahay bini aadamka waxa uu ku qiimeeyaa tacalluqa ilaahay ay la leeyihiin lidaalika maalinta dad jududa oo muslaamnimada jadiid ku ah ayaa saxaabada tirada u buuxinayay cadadkii markay isku eegeen ay arkeen inay gaalada ayagu ka tiro badan yihiin ayay yidhaahdeen maanta tiro annaka ayaa gaalada ka tiro badanoo guusha maanta annakayna raacaysaa judhii horraysaba muslimiintii baa la jebiyo laga adkaaday ilaa nimankii acraabtii ee mushrikiintu ay yidhaahdeen ma haddii uu nebi yahay baa ciidankiisa la jebin lahaa markaasaa nebigu istaagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana nebiyun laa kadib ana ibnu cabdilmuطalib buu nebigu yidhi anigu nebi baan ahay oo nebinimadayda been ka sheegi maayo anigu ina cabdilmuطalib baan ahay buu nebigu yidhi beenna ma sheegaayo markaa buu nebigu la hadlay adeerkii cabbaas wuxuu yidhi cabbaasoo waxaad iigu yeedhaa ansaar iigu yeedh buu yidhi ansaar cabbaas ibnu cabdilmuطalibna 8 mayl baa dhawaaqiisa laga maqli jiray baa la yidhi oo 12 kilomitir baa laga maqli jiray qayladiisa markaasuu yidhi yaa lalansaar aawe ansaar raggii nebiga la mubaayacooday inay dhiiggooga iyo dheecaankooga iyo naftooda nebiga ay ku difaacayaan maanta mee ansaar allaha raalli ka noqdee sida sacu weyshiisa ugu soo gadoodo baa la yidhi ayay maalinta nebiga ugu soo gadoodeen iyo nebiga agtiisa ugu soo duumeen markiiba keligii buu nebigu halkaa ku hadhay isaga iyo cabbaas iyo dhowr nin oo muhaajiriina ayaa ciidankii dhannaaya mushrikiinta u jilib dhigtoo tidhi uu nebigu yidhi uu dhaqaaqi waaye nebigu wuxuu yidhi nebi ilaahay soo diray baanoo nebinimadeeda been ka sheegi maayo
ina cabdilmuطalibna waa nahay buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. geesinimada haddaad eegto shaksi ka geesinimo badan nebi maxamed adduunka ma soo marin.